la sameeyey lama kor yeelo balo ilaa tawbaa lagu kor yeela dadkii hore nin wanaagsan oo cibaadii hore ka mida ayaa dembi ku dhacay dembiguu sameeyey hurdadaa loogu yimid waxaa lagu yidhi latajidanna ghabbaha caaqibadeeda iyo xumaanteeda dembiga aad la timid waxaad heli doontaa bacda 40 sana 40 sano kadib ayaad arki doonta dembiga aad la timid 40 sano kadib ayaad arki doonta محمد ابن سيرين maalin bay dhibaata qabsatay dayn lagu lahaa ayuu la murugoonayay markaasaa waxa uu yidhi waxaan garanayaa innii la acrifu hada algham ghammigan iyo murugtan i haysata iyo dhibaatadan waan garanayaa xaggaan ka soo qaaday waa dembi aan ku dhacay mundu 40 sana 40 sano in laga joogo dembi aan galay ayay haysta ilaa maanta imaam axmed waxa uu ka wariyay abudardaa waxa uu yidhi abudardaa waclamuu ogaada ana albira laa yabla dembigu ma gaboobo albiru wanaagu laa yabla ma gaboobo wa ana alism dembigana laa yunsa lama iloobo adigu waad ilowday dembi baad samaysay waad ka ilowday lama iloobin dembigaad samaysay uu ku daba socon waad iska ciyaaraysaa adigu waad iska qoslaysaa war uma haysid laakiin dembigaasi uu ku daba socon beri dambe ku qaban doonaa waxaa laga yaabaa inuu adiga iyo awlaadaada uu ku qabto qisadii ugu horeysay han soo qaadanno alxaqiiqatu almura waa xaqiiqadii qaraadhayd haweeney ayaa oday lahayd 5 sano ayuu qabay daariin ayaa la yidhaahdaa haweenadaas wax caruura uma dhelin waxay ku fikiraysay maalinka ay noqon doonto hooyo ay ilmo yeelan doonto ilaahay bay baryaysay rabbi subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay walad saalixa u siiyo ayay baryaysay in badan ayay ducaysan jirtay ilaahu walad isii ilaahu 5 sano yaan ku baryayaa rabbiyow walad isii ilaahu walad isii aad bay u ooyi jirtay waxay ku fikiri jirtay maalinka hooyo noqon doonto ilmo yar arki doonto ayay ku fikiraysay haweenaydii waxay is aragtay isbeddel bay iska aragtay caadadii baa ka joogsatay iyadoo madax xanuun leh is aragtay waxay aragtay iyadoo isbeddeshay ayay is aragtay dhakhtarkay tagtay way isbaadhay odaygaa raacay wuxuu dhakhtarkii u sheegay inay uur leedahay way faraxday farxad 5 sano sugays farxad isqaadi kari weydi dadkaygu inay ugu sheegtay farxad waa la iskugu yimid farxad ducaa la sameeyey wiilkii ay sugaysay ayaa yimid oo dhashay waxay u bixisay muxamed ayay u bixisay laakiin wiilka waa lagu jeexay aad bay ugu faraxday wayna ku dhibaatootay jeexitaanka ilmaha lagu jeexay ku dhibaatootay odagayga waxay ka codsatay in ay u qabto haweeney u shaqaysa qaadimad iyo qabo uu qabtay waxaa jiraysay islaan da'ah oo faqiirada oo miskiinada oo guryaha u shaqaysa ayaa jiri jirtay islaantii buu u keenay si ay ugu shaqayso markay 7 u shaqaysay ayaa waxay ku tiri haweeneydii daarin bay ku tiri islaan da'aan ahay laakiin inan yar baa guriga ii joogta anu aan dhalay inantaasaan kuu keeni ha kuu shaqayso anaana shaqada bari maalimaan la joogi ay ogoloobay tiri waayahay bay tiri sidii bay inanteedii yareed ba u keentay inantii baa ay shaqada tusaysay 20 maalmood ay u shaqaynaysay islaantuna ay ag taagneed gabadheeda tayar da'deedu 17 jir ayuu yahay aad bay u qurux badantay way soo labisan jirtay markay gurigan imanayso way soo qurxin jirtay soo labisan jirtay markaas iman jirtay daarin ba aragtay tayar mar walba isa soo qurxisa
waxay ku tiri hasi soo qurxin way cabsanaysaa odagayga oo cabsanaysaa inay meesha fidna ka dhacdo may buu ku yidhi maxaa dhibaato ah iyadoo foolxum intay ku iman lahayd soo qurxiso dhibaato male inay faliisiiso ayay doontay waxay tiri wuxuu ku yidhi may 40 ka dhammayso kadibna markaa iska faliisi laakiin ha kuu shaqayso tii yaray gurigay ka shaqaysaa way soo qurxisaa 37 maalmood markay u shaqaysay ayaa gabadhii daariin xumadii xanuun dhiigii nifaaskii ayaa xumad ka qaaday ee ku xanuunsatay odaygii ayaa sida caadadiisa si aan ahayn ayuu subaxdii markuu soo baxo uu iman jiray uu wareysan jiray sideed xalay ahayd oo adigii xanuunsanayay maxaad subax uu iska soo kacay baabkii mu ka baxay way shakiday maxaa dhacay bay tiri talo muxuu ii soo mari waayey uu baridin waayey way shakiday gabadhii shaqeeda ahayd baa u dhawaaqday gabadhii ayaa maqli weyday aad bay xanuunsanaysaa way soo kacday iyada raadinays aqalkii bay dhex marmartay way ka weyday qolkii ay seexanaysay ayay ka raadisay way ka weyday guriga xaggii mandaradda ahay bay u kacday waxay aragtay qolkii odaygaygu u seexanayeen oo ay wada seexan jireen oo dharkii hurdada xidhan tahay oo hurido lugta du saartay albaabkay furtay waaba gabadhii oo naa waa maxay bay tiri waxaad samays way ku qayliday ma waxaad seexanaysaa gurigii odaygaygaad seexanays oo dharkaygii baad xidhanaysaa dharkii hurdada miyaad xidhan waxay ku tiri hadalkaaga u fiirso ha igu dambaabi gurigan anigaale ma ogid uu i guursaday odaygu in 7 laga joogaba caruusad baan ahay arrintiibaa meesha khilaaf baa ka yimid waa la isku qabtay meesha feerfeer bay bilaabeen dumarkii iyo xagash dhulkaa la isku ladgay meeshii dagaal xoogla ka dhacay kadibna ilmihii yaraabay soo qaadatay axmed mise maxamed buu ahaa maxamed way la soo dhaadhacday hoosay la joogtaa odaygaygii baa yimid isagoo lalaya aawoduu yidhi waxay tiri kor bay joogtaa uu dhawaaqay umu maxamed xaggee joogtaa albaabkiiba furay waaba iyada oo mayda oo caloosha u jiifta oo dhiiga ka soo dareeray meel socdo uu dhawaaqay khaadimadii baa soo oroday meeshii bay timid waxay tiri maxaa dhacay subxaana allah iyadoo fiican ayaan ka imid ha kori maan ku idhi meesha ma kori karaysid laakiin way kortay xaggii buu dhawaaq ku dhuftay akhiiran waxay socotaba qisadii dadkii jaarka yimid dhakhtarkaa loola orday dhakhtarkii wuxuu sheegay inay dhimatay albaabka fardada albaabka ayaa meeshii laga jeexay ka gashay nabarkuna uu furmay sidaasay ku dhimatay ninkii dhakhtarka ahaaba waxa uu yidhi miyuuna qofin la joogin markaas may buu yidhi wiilkayga yarmaa la joogay maxamed waa qadar ilaahay baa la yidhi saasaa lagu aas 3 maalmood kadib markii la aasay ayuu reerkoogii ayuu u dhawaaqay gabadha xaaskiisan dhintay uu ogeysiiyey gabadhiina way dhimatay ee kaalaya aabbaheed hore u dhintay ahayd hooyadeed iyo walaalkeed baa yimid waxay ku soo tashadeen inay wiilka yarna ay qaataan maxamed ay korsadaan iyagu u soo dhaweeyey inantii shaaqeedda ahayda meesha taagan magaceegana jamaalaad baa la yidhaahdaa meesha joogta ayaa aragtay islaamtu waxay ku tiri odayay ku tiri gabadhani waa ayo abu maxamedow waa ayo gabadhani waxa uu ku yidhi innahaa zawjati waa haweenaydaydii daarin iyadoo aan nool baan guursaday gabadhan ma sidaasaa bay tiri haa way shakideen markaa waxay tiri gabadhaydii
يا دلي سيو دمتي وانكشك السنة هبك هذه وشيكتي إنه دمت قبل ما يشوكتي ها قبل وانقبي لكن لما يشوك المالين كاس قدر الله تشوف وشيء بابك تشردي نبر كاسك فرمي قبل يرد بأكتي عروسدي جديد كأهيت وحيتري محمد الدقيس إذا كانت الحقيقة اختفت عن المخلوق حقيقة هذا كقرصوناتي مخلوقا أي كقرصونتها حقيقة فلن تختفي عن الخالق إله خالقة كقرصوناني ميس ولي إلو دنبيجن نو لا إلا لإسك إلو بي لكن إله إلو بمايو وأكو دبص عن أرنتاسي أبو أبو محمد وما أبي الأرنتاس وحاويلي كل إنسان يأخذ نصيبه قفل بالنصيب كيسو قاضا ويدي ما نصيب أبو محمد وحا الضونين شرابي أو الشراء ويسكديد إسلامتين ويحنا أقسنته وحا يتري المهن كرسانينا أنك كحيسانينا وايه بيلي وحا يقولي بشي والمصروف كان كيني ما يبيتري أنك كرسانينا أديركي أيا ويلك قاضي ويبحين haweenaydii shaaqiyada ahayd jamaalaad la oranayay gurigii viilada ahaa ayay ku nimcaysataa ku dhex noosh marna dushay tagtaa marna hoos nolol fiican ayay ku noosh faqirnimadii way ka raysatay xaalkeegu wanaagsanaaday sanad kala soo maray si wanaagsan sanad kala soo maray si wanaagsan caruur bay u dhashay 8 wiil iyo 3 hablood ayay u dhashay waa mis كوبية طبعا يودش ماني والبقروح بقوا بيريسي بس كانت بقت فقيرة أو وحدها يسد نمعد بسوقش لكن ذنبي قميرة إلهي أدونك سواءك هذه مركو قبتنا كما سيبت إيضا أن نمعد كنا أيا أدقي وحي كتيري وحن دوني يا إنا الصير الدلحيسنو إير هودا سوير بدلنا مقالة كلمة جيها سوير الحيسنو وايا هي بيري بابور بكو قاضي وين يدا يعروتي دي أردن كوبي ترون كيبا إسا قال كودي بابور كيبا لقى لمي جبي جوج وحا كبت بادي يدا يويل كيجي وينا عرض كأها بس انتي كلاوي كودنتين يدي لفت نبر كأيا جبت wiilkaygiina iyo qacantii iyo meel ka jabay laakiin waa iska fayooga markii ay soo miyirsatay ayaa waxay ogaatay in caruurteedii inankaas uu ka nool yahay 10kii kale inay dhinteen ay ogaatay iyadiina waxa ku dhacay dhinac ba bakhtiye baralize ba ku dhacay 3 sano ay dhakhtarka ku jirtay wiilkaygii 2 bilood buu ku jiro ka soo baxay noloshiiba hadda ku culusaat wala bilaabay dambiga bilaabay waxay ku socotaa waa kursi yaa lagu wadaa dadka laga laxaad kale kursiga ay raacaan ay ku fariistaan ay ku socotaa wiilkeegii ayay ku tiri ii kaale dhakhtarkan ka soo baxay baabuur soo ka haystay isagana wadada markuu soo socdo baabuurkii la rugmaday isaguna wadadu ku soo dhintay wax u yimaado way weydi waa kaligeed laakiin lacag baa leedahay la soco dhakhtarkii ayaa reerkoogii bay raadiyeen aabaheed iyo walaalkeed baa yimid si ay u qaataan waxaa yimid محمد ما تقرأنسان محمد وويلكي وأدقيق ودلي أيا يمسير دحالكي آبيه وحقاقاته وحا لسعتي معيدي أيا لسعتي سلانتي دا شي دارين قبردي ماشي سوتها قنتهي وحي تري مركي إسلانتي أركتي أي حسوستي إن الدم بقش waxay ku tiri habar yar maad xasuusanaysaa hadalkaagii adigu tiri إذا الحقيقة اختفت عن المخلوق
xaqiiqadu hadday ka qarsoon tahay makhluuqa dadka ay ka qarsoon tahay ilaaha khaaliqa kama qarsoona maxaasonta haabay tiri waxay tiri saamixni ana allatii qataltu daariin gabadhaadii daariin anigaa dilay isaamax ilaahay waa kan ii qabtay caruurtaydii oo dhan waan waayey anigana waa kan dhabarkaa la iga jebiyey nolosha qadhaadh baan ku noolahay isaamax islaantii way ooyday waxa ay tiri ilaahay nolol xun ha kugu noolaysiiyo aakhirana ha kugu cadaabo waxa ay tiri odagaygii waan waayey awlaadaydii waan waayey shabaabnimadaydii iyo caafimaadkaygii waan waayey in yar isaamax islaantii iyadoo adhaysan oo ooyeysa ayay ka baxday jamaalaad xaggii bay reerkoogii la joogtay aabbaheed baa dhintay walaalkeed ayaa u hadhay lacagtii yaraydee soo dhaxashayna isagaa ka qaatay khamru ku cabbay wuu ku zinaystay isagiina akhiiran si xunba u dhintay jaarka ayaa lacag u soo ururin jiray sadaqaddaa la siin jiray jamaalaad keligeed ayay ku nooleed maqsin yar oo cidhiidhiya cidlay ku dhimatay waxaa lagu gartay dhimashadeedii meydkeegii ayaa meesha ku qurmay markaasay jaarkii uriyeen meydkii cadaabka aakhirana waa ka daran yahay dembigu waa sidaa ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala wuu kuu kaadin laakiin maalinka uu ku qabto rabbi ku naxariisani maayo waad iska noolaan waxoogaa waad iska jiri laakiin maalinka ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku qabto ka fakan kari mayse waa xaqiiqo waa qisad dhaba ma aha khayaal ma aha waxaan inii sheegay qisad kale oo dhacday oo xaqiiqiya iyaduna qisadani waa 2 usbuuc reexayso noloshaada oo dhan iyo qoyskaaga oo dhannaha baaba'o qisadani wiil yar oo dhalinyara oo jaamacadda dhigta ayaa jaamacadda ayuu galay mar uu u soo daalay uu u soo dhibaatooday kadib ayuu jaamacadda galay markuu jaamacadda uu ka sii baxayay jaamacadda ka bixitaankaygii sanad baa uga harsan ayaa waxa uu goostay inuu dibadaha u dhoofo Yurub reerkoodu iyagoona ogeyn ayuu doonayay inuu Yurub tago waxa uu rabaa inuu zino uu xagga ku soo sameeyo xashiisho iyo khamro inuu maartay uu soo cabo ayuu rabaa aabihii buu ka qarinayaa hooyadii buu ka qarinayaa dadkoodu inay ogaadaan ma doonayo wiilkani arrintaasi markay ku soo dhacday fikraddaasi inuu dhoofo uu Yurubta u dhoofo uu xumaanta uu soo sameeyo waxa uu ku fikiray siduu waalidkii way ogaanayaan dhoofkiisa siduu uga qarin lahaa arrintaasi markay ku soo degtay wuu isweydiiyey habku been u samayn lahaa wuu isweydiiyey akhiiran waxa uu yidhi waxaan oran aabbahay iyo hooyaday meel yaroo tuulo yar oo waddanka ka mida ayaan u yar dalxiis tagayaa isaamaxa iyo ogolaada arrintiibuu waalidkii ku qanciyey waalidkii waa yahay buu yidhi aabba waan daalay jaamacadda waan ku daalnay in badan baa wax dhiganaynay maskaxdaydu nasasha u baahan tahay haysadahanaan tegayaa waxoogaa fasax lacag isii uu marsiiyey aabbihii waa yahay buu odagii waxa uu bilaabay inuu baasaboorkii si hoos ahaan uga soo baxo iyaga oo dadkoogu ayna ogaan kadibna safarkiisii ayuu dhaqaaqay lacagtiina aabbihii uu siiyey waxa uu yidhi 2 toddobaad umaan kaa maqnanaya aabbo 2 toddobaad kadib oo iman odaygii sidaasuu ku waafaqay wuu yeelay lacagtiina waa siiyey 2 toddobaad ayuu maqnaanayaa wiilkii reerkooduu sabootiyey wuu baxay mid saaxiibkii ayuu la heshiiyey
ويري هواس بعد إيك حين المضار كان إجين ما كان إيمانا يانا أدا يسوع علي سيدي بويالي صاحب كي بوشة كي ويري هوشة غيرك يوروب أنت جيان حريق ونكسر هنا ولا حياة سيدي وكب حي مضار كي بوجي ماشي بيكسو جانو حوجا كدينا ديارة دي بالراعي مقالة دي والربي بكسر دقي وفرح سيئة حمام وكفر سيئة زنا يشر ويمت ولا ماشي أنا كسر تنتو يمت مركي وماشي يمت وهوتالكي وكسر دقي والربي وشركي هرب ما يدي إنه هرب بحرة عاوضين كفر يستور على وقتها إسلام مركي روحوا عصدي إن خمر الله كانوا waxa khamradii baa loo keenay gabadh yar ayaa u keentay aad u qurux badan timo dhaadheer ayaa u keentay qaawan mara yar khafiif xiran waa u soo gashay u rumaysan waaye hal qaawan oo khamradii wada ingiriisiga aad uma yaqaano waad mahadsantahay buu ku yidhi uu sii eegay sii daba dhaqaaqay وسؤالك ما دي بهانتاي كتير مي ويلي thank you very much وسي دقائق وحو دقائق حقا iyo risiyo hoos ta hotelka sharabki ka socod soo tumo markii meeshii hoose u yimid luqada aad ma yaqaan oo jabsada khamradii baa loo keenay meesha waa boqol tirigo kala midab ay meesha ولا عياريا ولا دانسيا وحبا صعبة ماشي بسودقي قبل بأتمت وأما لنا يتي إلى تهي هذا قرح بدن تيبع الوفا لستي وحا أكويلي نا تي مركي هرمتي وأنا هبت وادس بد الشيء هذا لكن من بدل بقول أي كتير وأشك توحي كتير أنا ذكر رالي قليا شراب كانوا كينا وحا أبهين ودنباسيا si hotelkan qofku uu mar walba u yimaado xaggii buu habeenkii oo dhan kula soo jeeday waxa qolku ii raacdu ku yidhi qolkii bay isku raaceen xaggaas ayay 3 saac ilaa 4 saac ayay ku sheekaysanayeen khamradii bay cabbeen way sakhraameen zini iyo xumaantii bay ku dhaceen xaggii buu kala dhacay way agjiibsatay صباح دي مركو توسو أكناكتو أكتيفت وأرجح ماذا تفعلين هنا؟ حاجة محاذ كقبانيس يقول أقل عدينا سوقش قاس أوشر تنتري أديك وعين كاسر أديك يسود وعين وشرح يرى النقوي شراب كو لعبي حقي بهدنا شراب كالأوكانتي ماذا حانوني تركو صايرا ميدي كدب حقي بكسي ميسي شركيسي يفسادكي خمرة دي بسيدي وعبي naagtaasuu la noolaa 2 toddobaad khamradu cabayay zinadaasu ku dhacay xashiishadii wax walba soo jeedbu waqtigiisu ahaa 2 toddobaad buu sidaa ku dhammaystay subaxdii uu noqonayo 2 toddobaad ay u dhammaatay ayuu gabadhii ku dul ooyey isku dul ooyey ninna ku dul ooyey waan ku soo noqon doonaa iyo kadib maalmo ma ka maqnaan iyaduna ku dul ooyday wadankiisiba ku soo noqday isaga oo faraxsan sharkii uu ku dhacay ku faraxsan xumaantii ku faraxsan gabadhii quruxda badneed ku faraxsan ayuu yimid saaxiibkiiba madaarka ka soo kaxeeyey baasaboorkii meel iska dhigay hooyadii aabihii uu yimid sheeko caadiya oo meeshii waa iska fiicneed waa wadankii uu qurux badan yahay xaggaas ayuu ka miistay jaamacaddii buu ka baxay ninkii kadib shaquu helay wuu shaqaystay waxa uu yidhi waxaan doonayaa aabba inaan guursado haddeed naagtii iyo hojeelkii maskaxdiisa kama bixin mar walba wuu ku fikiraa suu isku ilowsiiyo ayaa waxa uu yidhi iska guurso laakiin ogow ilaahay rabbi waa u cadhaysan yahay rabbi subxaanahu wa tacaala dembigana waa loo qabanayaa uu ku reexaysanaya xataa qofku hadduu dembi uu ku dhaco waa inuu ka murugoodo dembiga uu maskaxdiisa inuu siiyo inaad mar walba aad soo ceshatid ma aha waa ka murugood
inuu ka murugoodo way qofku isagu waa ku soo ceshanayaa gabadhii oo la hadlaysaa lagu qoslaysaa isagoo xumaantii samaynaya isagoo khamradii cabaya wixii oo dhan wuu guursaday waxa uu guursaday gabadha inaadeertii adeerkii u dhalay ayuu guursaday waa istiyaariyey oo waa diyaar garoobay aroos fiican ayaa loo qabtay 2 bilood kadib ama 3 bilood haweenaydiisii waxay tiri uur baan leeyahay la soco uu farxay aad buu ugu farxay aabbu noqon doonaa maalimaha ka mida isagoo oo ku fikiraya markuu aabbo u noqon doono oo baabuurkiisii wata waa islaantiisu markii ay dhalmada bil uga harsan yahay weeyaan ayuu accident galay baabuur kale isjeedhaan madaxa ayuu meel ku dhuftay dhakhtarka loo qaaday dhakhtarku bil ku jira bil kadib haweenaydiisii baa dhakhtarkii iyadana loo qaaday way dhashay wiil bay dhashay dhakhtarkii ayaa loogu geeyey aad buu u farxay markii uu rabo inuu ka soo baxo dhakhtarka ayaa waxyaalo jirkiisa ayaa ka soo baxay kulayl xumad kulul ayuu yeeshay dhidid fara badan ayuu yeeshay shuban ayaa ku dhacay qufac aan kala go' lahayn ayaa helay waa la baaray waxaa la ogaaday AIDS inuu ku dhacay sida ayaa la ogaaday waa naagtii wuxuu ka soo qaaday ogow arrintii meeshii baa laga saaray qol gaara ayaa lagu xareeyey dhakhtarka aabbihii baa xanaaqooyin maxaa wiilkayga qolka gaarka loogu xaraynayaa waa loo sheego waxaa la yidhi wiilkaaga cudur khatara ku dhacay xaggaasu ku xidhnaanaya waa loo sheegay siidaa baa ku dhaca la yidhi odaygii isagoo oo aad u murugaysan ayuu wiilkiisii soo kortaagay waxa uu ku yidhi ii sheeg runti berigii xaggeed u dhooftay dhul xaaraana u dhooftay khamrada lagu cabo lagu zinaysto miyayna ahayn wuxuu diidaba markii dambe haa buu yidhi uu u sheegay waxa uu yidhi meeshaas ayaan maartay u dhoof khamrana waan cabbay waana zinaystay markuu intaa u sheegay odaygii naxdin isagana dhinac baa baktiyey baalisay ina batsha rabbika la shadiid qabashada rabbi way adagtay odaygii waa la qaaday dhinac baa isagiina dhakhtarka dhinac laga jeefiyey wiilkii ayaa loo sheegay in haweenaydiisii ay imanayso ay soo booqanayso weli wiilku ma oga inuu xanuunkan uu ku dhacay ma oga haweenaydiisii ayaa meeshii timid waxay ku tiri laqad dalamtanii waad i dulmiday inankaagiina waa dulmiday dibna u arki maysid inankaagii ogow markaasaa waxa uu ku yidhi maxaa dhacay waxay ku tiri miyaad og tahay xanuunkaaga may buu yidhi sidaas wayaan bay ku tiri xanuunkaaga AIDS baad qabtaa naxdintii meesha uu ku dhacay naftaa ka baxday wuu dhintay isagii iyadii meeshii bay ku xanuunsatay aad bay oyday iyadiina waxaa dhacay waa la kaxeeyey markii ay meesha ku oyday waxoogaa ku xanuunsatay ayaa dhakhtarka loo qaaday waxaa loo sheegay inay iyaduna AIDS leedahay sidaa iyada iyo wiilka yarba iyadii naxdin markaas way waalatay naxdintii bay waalatay qol baa lagu xidhay wiilkii yaraana waa laga qaaday waa laga fogeeyey odaygii meesha ayuu ku sakaraadayaa
dhinac baa bakhtiisan odageygii dhimay wiilkii yaraa iris buu leeyahay meesha iyadii waa tan waalan iris bay qabtaa xaggaas ayadana maarta lagu hayaa haweenayda aabbaheed baa yimid iyo walaalkeed ayaa yimid si iyadii bay dhakhtarka ka soo saareen wiilkeyga bal ha aragto in yar ha aragto bay yidhaahdeen si ay nafteeda u degto muddo ayayna arag wiilkaygii bay ku soo booday laabtay ku qabatay xoog bay ugu dhegtay naqasii ku dhejisayba qiiq yarana naftaa ka baxday meesha ayuu ku dhintay waa qisada runa oo dhacday dadkii u taagnaa ee qisadani ka dhacday ayaa qoray oo warinaya wiilkii yarana xaggaas ayuu ku dhintay iyada oo qoslaysa marna ooyeysa ayuu odaygii doonay inuu ka qaado wiilkii yaraa waxay ku tiri maata laqad maata wuu dhintay hoo ilmi yaraayo mayda kadibna midii bay ula baxday odaygii wuu hanjabtay aqalkay kortay waa isku soo xidhay mar wax hadda ayay xari ku xidhay wayse soo sodhay xaggaasa iyadiina naftu kaga baxday qoyskaa iyo reerkaa maxaa baabi'iyey ha isweydiino waa zinadii uu maalinkii galay uu ku farxay uu mar walba ku soo ceshanayay ayaa way ka daba timid haddaad adigu ilowday ilaahay ma iloobin ilaahay ma iloobin nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa daharat almacaasi fii ummatii macaasidu markay ummaddayda ay ku soo daahirto ay ku soo baxdo soo muuqato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku caam yeelaa gebigood cadaab min cindih cadaab agtiisa ka ahaaday ayuu ilaahay subxaanahu wa tacala kusoo marka ay musiibadu soo degayso waa markaad aragtid fasaadkii oo soo daahiray xumaantii oo la muujisanayo dibadda la muujisanayo ogow markaasi ilaahay wuu cadhoon ilaahay hadduu cadhoodana oy cadhada ilaahay ay soo degto kana wanaagsan kana sheekha kana ma jirto gebi aakhira la kala soocayaa asxaabtiiba waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allahi amaa fiihim yowmaidin unaasun saalixuun maalinka miyayna dad wanaagsan ayna ku dhex sugnayn maalinku ilaahay cadaabka uu ku soo dejinayo ay macaasida ayna iska qabanayn dad wanaagsan mayna ku dhex jirin nebigu waxa uu yidhi balaa haa way ku dhex jiraan dad wanaagsan markaasi asxaabtii waxayna kayfa yusnac biulaa'ik kuwa maxaa la gaarsiin oo laga yeeli nebigu waxa uu yidhi yusiibahum maa asaaba annaas waxaa dadka ku dhacay ayaa iyakana ku dhici uma yasiiruuna ilaa makfiratin min allahi waridwaan kadibna raalli ahaanta ilaahay iyo jannadiis ayay geli doonaan ilmaha yar muxuu dembi uu sameeyey odaygaasi muxuu dembi sameeyey waa dembigii odaygaa waxaa loo qabtay inanka dembigii uu sameeyey ayaa loo qabanaya aakhiro waa laka bixi janno iyo wanaag iyo khayr buu ilmahaasi gaadhi laakiin adduunka musiibada iyo dembigaa soo degay ayaa lagu ciqaabayaa ayuha alikhwa nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu noo sheegay waxa uu yidhi maa daharat alfaaxishatu fii qowm zinadu qoomku ma soo daahirto oo ma muujistaan xataa yuclinuu biha ma muujistaan zino qoom zinadii ayaa meela loo sameyn video lagu daawado hablihii iyo inamadii baa isla geli xumaantii baa la muujisan meelo lagu daawado ayaa loo sameyn dadkii zinadii bay daahirsanayaan buri nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markay muujistaan waxuu ilaahay ku sallidi cuduro aan jirayn lam takun fii aslaafihim dadkii ka horeeyey aan ku dhicin ummadii naga horeeyey nebi nuux qoomkiisii iyo caad iyo tamuud iyo aydhis iyo siidaa iyo ma jirayeen ma jirin waa zinadii oo la daahirsaday iminka siidaa baa dhacay jabti baa dhacday hablihii baa la kufsaday meel walba xumaan iyo fasaad ogow weligaaba iswalwaal adigu weligaaba arlada isku qaadqaad
إلهي وكوك هذينيا إلهي وحلي أدونك وإنت سكسوت إيسو النقضة وإنت سكتوبت كان لكن مركز حمانت أتكسي سعوتي إلهي وكو قبن هدوك قبتنا إلهي كون حريصاني معي قصة نبا وأتاقنا وأتشوغي أنيقو تبقى نوحا لغايا ضا ماشا فردي إنا قرانيا إنا مبالو تاقي دعاء دا أتاكتي وحيكو إلهدين إلهي كعبصو دينتو آية إلهي بو آية صلاة دمتو كذو دينتو وحا إلى دينتو حق معها ساس ورنشري دعاء دا أتاقي وحا إلهي وإلهي كعبصو إلهي أتوبتكين وحا أيري ماشي فرديان وحا أيري لغيسته waxaad ilaahay baad ugu cabsiinaysaan iyo cadaabkiisa miyaa ilaahayna waxaa ku sameeya haddii uu imaqlayo waka aan caaye waxa iga qaada buu yidhi wallaahi alcadiim waa xaqiiqa waan u jooga anigu waa la argagaxay waa laga baxay meesha musiiba soo socotaa la yidhi inaga saara بلي ما سو وريجين ويسكي قسليي ويسكي عياريي بابور كيسيبو كحيست أكسيدا أبو قالي مال كلا ربي كمدلين لفتا نظرك أم لك الشبيه إنسان كان ضعيف فريران هذا لك الشبيه ما أنتم للإنسان كو عباري لفتا نظرك إلى هيك الشبيه قع ولا قاضي يورتا لقيي ولا سودويي لكن بارليزي طبعا بين عباد بختيي ما كيعي كريو ولا كاني وضك هلا كاني وحال كاني اسقو ان قعمها قادي كري لغاها لا ان قادي كري منا ان قادي كري فريس اي لا كان وان اتقلي وان ام نسيحيني وحال لغا يابا توبد كانو وهلا يا لكن هو مركل إلهي عاي إلهي بقى السرية قعمه سائي اللغه ساسي وأريا لما في لسان كريسيت متك والمتي وأريا دوي با يربط لقاسو سيي أمريا هبين كي مركو ساحدو وحالا وحا برامبر إيا جير إيا جينع إيا maxaan waxa waxa jaarka oo dhan meelahaas oo dhan ba ku soo urura xayawaan oo dhan markaas qacmihiisan iyo lugaha ma dareemayo isagu waa la cunaa subaxii markuu tooso ma arkaya inta la cunay lugihiisii oo la cunay uu dhawaaqaya saas u fadhiya waa lafihi waxay soo saarayaan lafihi bay soo saarayaan subhanallah sidaas u sugnaa وفديا بس ولا فريسية ولا قاضي دقائق كلام ملء عنتظر أفكار لوريدا بيها ولا ورابية ساس وفديا لبدي بري وكفدي إلى هاي وحكسو صاري لبس صافور واوي دلح يا ودي ولا كسو صاري علوش لو فريسي صباح دي والبا بخترك أوي مادة وحبال قد عليها ولا كسو سفيا انت سيلا ليجن دلوك وويني وما فلسن كاري على شو جيفا قرمونك كبحيا حيوانك جركيسا كسو أوروريا سلعة وكنوليا وان اتقنا إساقو صدا كسوغا محور داوايا فيلمان حن او أنشا حنبو داوايا على شو جيفا إيرو رجولي إيرو فيلمك أجل يعني وحويا وحالتي جدا بيسي أي كسبنا سيء أنت هذيك ما داعي كريس وحصل أو كسبنا ذا ما كده هو يدي وبري شري dadki qaraabadiisa way ka tagay gabadh guriga uma shaqeyso gabadhii guriga ka shaqeynayso way ka tagtay oo la tagay abay tir guriga oo dhan baa uraya hooyadii baa ku soo hadhay hatta walaalkii uu ka tagay hatta walaalkii uu ka tagay
وحبري جري قفك يماد ويماده ولا يقنح maxaan kuu qabtaa idaldal idil naftayga qaat inaan dhinto ayaa ii dhaanta noloshana ku noolahay xaaladaasoo ku noola ayuha alikhwa sidii isaga oo ku nool buu dhintay maxaad u malayn ilaahay cadhadiisu way daranta waxaa dhacay waa qisa xaqiiqiya waxay ka dhacday sacuudiga ayay ka dhacday meesha faysaliya la yidhaahdo riyaad ku taala ayay ka dhacday qisadaasi waa haweeney meesha faysaliya la yidhaahdo waa riyaad waa meel aad u qurux badan qalab qaaliya lagu iibiyaa inamada iyo hablaha ayaa isla soo doonta oo meesha yimaada gabadh baa maradeeda khafiif ka dhigatay intaa yara laabta ayay qaawaysay waa sacuudi carabiya inan sheekha meesha soo galay gabadhii baa waxa uu ku yidhi naa ilaahay ka cabs low jaa'aka malaku lmowt maada tafcaliin hadduu malakulmowt kuu yimaado adiga oo sidaa laabtaada u qaawiyey oo raggu sidaa kuu daawanayaan maxaad yeeli buu ku yidhi intay qosashay ayaa waxay tidhi boortaabalka rabbiga u garaac hoo telefoonkaygano waxaad ku tidhaahdaa malakulmowtka ha keeno boortaabalka rabbiga u garaac telefoonka rabbiga u garaac waxaad tidhahdaa malakulmowt keen yarkii wuu naxay isagoo argagaxsan buu ka baxay meesha waxa uu yidhi albaabka maan gaadhin wallaahi alcadiim ilaa waxaan maqlayaaba qaylo waa la wala qaylaya waan soo noqday buy maxaa dhacay waaba gabadhii oo wejiga u dhacday oo dhimatay way dhimatay xaggii isla markiiba meeshii bay naftu kaga baxday waxa uu yidhi markaan arkay in iyadii ay tahay ayaan dadkii u sheegay oon idhi wallaahi alcadiim iminkaan u naseexaynayay gabadhan oo hadalkaas ay tiri ilaahay waa kaa qabtay waxa uu dadkii way ooyeen meeshiina way ka baxeen iyagoo ooyaya qisadani waxay dhacday bishii shacbaan 1421 hijriyada nebiga calayhi salaatu wasalaam ree faysaliya dadka ka shaqeeya oo dhan wada garanayaan qisadaa iyase u dhacday ilaahay waa naxariis badan yahay addoonkiisa waa u kaadiyaa rabbi subxaanahu wa tacaala laakiin maalinka uu qabto rabbi uma naxo qisad kale caawa habeenkii qisaska un qisadani waxay ka dhacday sheegi maayo meeshay ka dhacday laakiin wiil yar oo caadi la yidhaahdo ayaa waxa uu ku noolaa nolol aad u qadhaadh buu ku noolaa xumaan badan buu ku noolaa khamradu cabbi jiray hablaha ayuu ka tuman jiray fasaad badan buu ku noolaa gabdhaha ayuu meelaha ka ugaarhsan jiray waxa uu maalin uu helay gabadh la yidhaahdo rabaab la yidhaahdo oo ardayada oo jaamacadda dhigata ayuu helay telefoonkeeguu helay wuu u telefooniyey wuu la hadlay si wanaagsan bay u sheekaysteen hablaha intuu saasoo kale uu yaalo la hadlo ayuu marka dambe kuula ballamayey oo xumaan buu ku samaynayay gabadhan iyadu way khashiftay oo waxay tidhi may i arki maysid telefoonka ama ku sheekaysanna weligeen lacag badan bay kaga dhammaysay telefoonka maalin walba u garaaca waa u sheekaysaa bes laakiin inuu la ballamo way iska diiday markii dambe waxaa ku inaan ku guursadaan rabaa xumaan ma rabo waxaasuu ku dul akhriyey waxa uu ku yidhi guriga aan kuu diyaariyey iyo xamaanta aan iibiyey kaale soo arag haddaad beenta moodays waxa uu wadaba way soo jilecday gabadhii
guriga ayaan ku tusi wuu dhaartay wuxuu ku yidhi wallaahi alcadiim inaanan rabin xumaan hadalkaagu manaag caqli badan baad u eg tahay waxaan rabaa bas inaan ku guursado gurigana soo arag maalin subaxa gabadha kulliyadda dhigata jaamacadda dhigata aabbaheed baa subaxdii sii qaada duhurkiina isagaa soo doona saasay ku noosh aabbaheed baa sii qaada mar walba aabbaheed waa oday aad u daran oo adagyahay rabaab subaxdii markuu odaygii meeshii u dhigay ayay kula balantay inanka waxay tiri meesha igu kaalay kulliyadda horteeda meeshii buu ugu yimid uu kaxeeyey meeshii buu la tegey guriguu tutusay ay karaseen isaga iyo asxaabtiisa qaar bay asxaabiyiin gurigiibuu tusay waa kan uu yidhi gurigu adigaa iskale adaan kuu guursanaya xumaan mar rabo waa kan nadiifta ah waa kan sidana waxaan oo dhan haddaad tiraahda axmaanta niga bedel waan kaa bedel xagguu ka wada gabadhii wuxuu wadaba wuu ka tuntay bas waxa uu ku yidhi sharaab baan inoo soo qabana waan soo noqoni sii yara joog aqalku dusha kaga sii qufulay baabuurkiisuu kaxaystay suxun buu u waday hayga habsaan bay tiri aabbahay baa soo doonayay oo wakhtiguu imanayay ayaa soo dhoway xoog buu u waday mukhaalafuu sameeyey waa la qabtay taraafiigii baa qabtay way kaxeeyeen baabuurkaa lagu riday waa la xidhay muftaax isaga haysta gabadhiina meeshay ku jirtaa mid saaxiibkii oo muftaax haysta isaguna hablaha soo ugaarsada oo meesha keena ayuu u telefooniyey wuxuu ku yidhi war hee gabadh baan ka tunto caynkaasoo gurigii baan ku xidhayo ama anigana waa la xidhay yadana aabbaheed baa u imanayo kulliyadii bay tegaysaay bal dee gabadha hore orod tagoo ka fur waa isu soo daayay kiina albaabkuu yaro gargaraacay gabadhiina xaggay ku dhex ooyeysa allah aabbahay baa imanay alla maxaa yeeliyey alla wakhtigii baa gaadhee alla saasay hayse uu ka furay inanka xaamid baa la yidhaahdaa markuu ka furay muxuu arkayba waa walaashi gabadhani waa walaashi xaggiibuu naxdin iyadiina naxdin xaggii baa waxa uu yidhi ma xumaan baad keentay karaamadayadii baad maaragtay ku ciyaartay sharaftaydii baad ku ciyaartay timahaygii wuu jijiiday xaggiiba moogta middi ayuu ku geliyey sidaas ayuu ku dilay walaash isaga soomaalida maxay tidhaahdaa god haddaad qodid dheerayn haddaad dheeraysid inaad ku dhici doontidna mooyaane yacni is-ilaaliga haddaad walaalkaa god aad u qodid aad ha u dheerayn waxaa laga yaabaa inaad adu aad ku dhacdide aad ha u dheerayn marka haddaad qodaysid waxa uu rabay hablaha kale iyo xumaanta kale iyo fasaad waka walaashii baa lagu soo riday godkii akhiiran iyadii ayuu dilay ma sii wadnaa qiso kale qisooyinkan waxaan u sheegaynaa waxa weeyaan in lagu waantoobo wax lagu qaato qisadani waxay ka dhacday iyaduna waa tan oo kale waa u dhow yahay laakiin ninkan waxaa la yidhaahdaa magaciisa saalix baa la yidhaahdaa waa nin ganacsata oo shaqaysta oo taajira isaga oo u socday meesha iyo suuriya ayuu socday xalab dariiqa isaga oo ku jira ayaa baraf badan ayaa soo da-ay dariiqa uu sii marayay ayaan la mari karin baraf awgeed waxa uu is yidhi guryahan dariiqa ka sii maarata sii maraysa guri ku leexo oo iska naso ku naso caadada waddadaana waxa weeyaan waddada dadka degan dadku ay ku soo leexdaan way la cunaan way la cabaan way martigeliyaan lacag yar bay siiyaan saasay maarata subaxdana ku baxaan meeshana hotel ma jiro guriga ku soo leexday marka gurigii ayuu ku garaacay way ka fureen